السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. khudaarta kiwi waa khudrad ay ka buuxaan noocyada kala duwan ee faytamiinada aasaasiga iyo dhammaanba macdanaha muhiimka ee jidhkeen u baahan yahay. waana khudradda ay cunaan dadka ka cabanaya cillad ka haysata xagga neefsashada iyo sanbabada. waana khudradda ay cunaan dadka doonaya inay wanaajiyaan caafimaadka dheefshiidkooda. waana khudradda sidoo kale ay cunaan dadka doonaya inuu wanaagsanaado difaaca jidhkoodu. sidoo kalena waa khudradda ay cunaan dadka doonaya inay si dabiiciya u dejiyaan kacsanaanta dhiigkarka. waana khudradda ay cunaan dadka jecel inaanu xumaanin aragga indhahoodu. waana khudradda ay cunaan dadka doonaya inuu nadiif noqdo dhiiggoodu. waana khudradda ay cunaan dadka ka cabanaya calool istaagga badani. sidoo kalena waa khudradda ay cunaan dadka jecel inuu maqaarka jidhkoodu noqdo mid caafimaad qaba. waana khudradda ay cunaan dadka ka cabanaya hurdo xumadu. waana khudradda ay ka buuxaan faa'iidooyinka aynu soo sheegnay iyo kuwo kaloo tiro badaniba. waana khudrad aad ka heli karto suuqyada khudaarta lagu iibiyo. waana khudrad loo cuno sidii tufaaxa oo kale. waana khudrad aad cuni karto xilli kastaba. waana khudrad dhadhankeedu uu soo jiidasho leeyahay. isla dhinaca kalena rumaanku wuxuu ka mid yahay khudaarta ugu faa'iidooyinka badan ee la isticmaalo. haddaba sharaabka laga sameeyo rumaanka waxaa ka buuxa maadooyin badan oo faa'iidooyin badan oo caafimaad oo aan la soo koobi karin jidhkeenna u leh. waana sharaabka laga helo noocyada kala duwan ee faytamiinada iyo macaadinta muhiimka u ah jidhkeenna. haddaba aynu soo qaadana 8 faa'iido oo laga helo cabitaanka sharaabka laga sameeyey rumaanka. waxaanay kala yihiin: kow, wuxuu jidhka dawo iyo ka hortagba uga yahay kansarka noocyadiisa kala duwan, iyadoo si gaarana loo xusay inuu ka hortag wanaagsan u yahay kansarka ku dhaca qanjirka borostaataha. 2, wuxuu ka hortag wanaagsan u yahay xanuunada keena ilowshiyaha, isagoo ilaa xadna u wanaagsan caafimaad qabka maskaxda. 3, wuxuu ka hortag u yahay dhammaanba xanuunada ku dhaca caloosha, waana marka sharaabkiisa la cabo subaxda hore xilliga calooshaadu ay madhan tahay. 4, wuxuu ka hortag iyo daawaba u yahay xanuunka gastriga noocyadiisa kala duwan, waana marka sharaabkiisa la cabo subaxda hore marka hurdada aad ka kacdo ee aanad wax kala cunin. 5, wuxuu ilaaliyaa caafimaad qabka wadnaha iyo marinada dhiigga ee wadnaha taga. 6, wuxuu ka hortag u yahay xanuunka beer subaga ee kolestaroolka. 7, wuxuu ka hortag wanaagsan u yahay xanuunka sonkorowga. 8, wuxuu ilaaliyaa caafimaad qabka lafaha. ugu dambayn, ilaahay baa subxaanahu wa tacaala cudurka iyo caafimaadkaba isagu haya. ilaahay waxaynu weydiisanaynaa caafimaad taam ah. aad baad u mahadsantihiin.